kuusoo fulay ninka la yidhaahdo cabdimaalik adeerkeen cabdimaalik baa kuusoo fulay oo ah abaanduulihii beesha kuumaday cabdimaaliga aad arkayso dadkan yaacaya faraha badan asagaa iskale in adeer aadhan ku leeyahay ilaahay ka sharaf iyo karaamo leh daaroodka ku dhaxlay inay ahaadaan hadda ninka dhahayo waa qaban qaabinaya waa ninka gabdhihii daarood caayayay ee qaawinayay ee babliga ku qaawinayay ee dhahayo boqor daarood baan dooranaya horta taasaa annaga ilhaano nagu ah maya beesha ataan u samayn عاي ما سودي هذا ولا هذا سودي القبيل ده يا الواحد قد بين ليسو الحانه انه ام بكم سو قادين ادنا ما قادي كنت حال بعد نغ سيسن marka waxaas waxa kama jiraan qofka la doortana ma matalo kan qaban qaabiyana daaradno ma tiri karo daarad annaga madaxdiisa ma talayno waka waana ka baxay daahirow niyow waa soo gala horta hal kelmada orana war horta nimayaho horta aanu ninkii la doortay mihi ninka la doortay oo xalay lagu caanushubay kabtan ayuub baa la yiraahdaa anigu dhalinyaradii daarood ee meesha joogtay oo ninka wax kaga caanushubay baan ku jiraa waxaan qabaa jagadaana in loo baahnaa ninkaasna uu yahay ninka soo bixi kara cod ka saa u leeyihiin intiina halka saaran oo daaroodka baan ana cod shakhsiya u leeyahay ninna kama cod dheeri ninna kama cod gaabni sakariya OG ninka cabdimaalik nin odaya oo culus oo qiimo leh weeye waa noo yimahay oo qolkayga aan joogay buu noogu yimi waana u sheego waxaan ku yiri waa de hadalkaaga hadal jira weeye waana soo wada hadleynaa wali in kastaana wicino aan si safar u ahaa dadkuna de concern-kooda iyo waxooda waa leeyihiin ninka halkaa hadda iga daba hadlay oo maxamed cali la yiraahdo horta waxaa fiican qofka bini'aadanka ah qofku ra'yigiisa inuu si xor u dhiibto inuu si maaragtay asluubaysan u dhiibto ninkaaniyo haddaan khaldanayn maalin dhaweyto isaga iyo daahir meeshiisu joogaan u malaynayaa waxaa dhacday isaga iyo daahir baa meegiisu haystay baan u malaynayaa nin mareexaana inuu yahay horta ninkaasoo maaha ninkaasi nin mareexaana oo maaragtay maalin dhaweyto ee daahir meel wada joogeen mar إدريس بيب الداهر وقفت كوسو دري نيكا مياه ونيكا هو محمد علي سي بي بي افينك قدومي سي بي بي ده بس رالله هنا رالله بس الدبر رالله نيكا لو هبيا بس رالله هنا رالله نيكا نين halkaas هذا القذف مالتا meesha ka yiri oo fool xun aan ku mooday raallahu marka wixii daliil oo shakhsi yani waa ogolahay ku socdo la neerayaal hortani raallah هل سؤال بوتا شنو اللي ورانا كان ما عندك عيال بالنسبه بركو ايش دوري كده عيال محمد علي دي كان بوها هذا بحيا ملحوس ورمعان علي مرحان مكانها مسواني كلواني كاس وراد الشيلو وراد سكريا ويكادي ورنيو شيلو هل اربع ربع الى كو عديو horta sakiyo isug محمد وعيارين iyo dumar daarood Ismaaciila ficiltan ay majarteen kula jiraan adigana maanta busta u wada ma isleedahay adigu naftirkaaga shiinow inaan wadada kugu dunaado baahan tahay suldaankii beesha tahay ma raba inaan dhagaxyo culus kugu tuuro horta sakariyo ninkan waa caytam anigu sagir ku caayam niyo ka baxad waaya iga bax su'aasha eeg shakhsi dhaqan xun baa tahay عليو مود قل محمد عليو لما waxa wada hadlay kabla laxa mood qal لما kabla laxa wada hadlay waxaan midgaan kan qaaniyo war horta mood qal horta war hadalka sugo mood qal hay oo billaahna ku cayn laakiin waxaan ku sheegayaa adiga iyo ninka sakraanka aad wadato dambi baa daarood ka gasheen public baad gabar daarood oo hooyo oo sharaf leh ku qaawisa oo banaanka soo dhigtay public baad gabar kale daarood ku cayso mareexana public buu asna gabdha daarood ku caayay labadiinaba ceeb bay daarood ku tahay ilhaano inaad magaca daarood sheegataan arrinkaas haddaad rabtaan qolka daar cali soo gogashta la imaada daarood uga garbaxa ismaaciil cumar gelcaaw daar cali soo waana ka baxay niyo wiilka dhulbaanto adigu ka baxay bes waayahay hadalkaas soo gelaya sakariya OG intaanan niyow hadalkaaga ka jawaabin niyow ninka maxamed cali ah waxaa waaye horta aniga iyo adigu saaxiibow aqoon horta isuma lihin aniga maalintaasaa runtii igu kaa horreysay maalintaa wixii meesha ay keenay waxay ahayd rag baa isoo wacay waxaa la yidhi idris beebe oo geem idiin soo wada dhegsan yahay baa daahir calasow iyo nin daarooda oo mareexaana oo ay meel mayg wada haystaan baa idris beebe
ninkii rusheeye soo kac waa soo kacay daahir baa wuxuu yidhi shiina culey baa yimi shiina muxuu hayaa waxaasaa la yidhi anoo coinskii gadaya baa waxaad tidhi hadalkaa inuu ii duuban yahaan jecelahay midgaha kablalax ah yaan aniga waxba la ii weydiin midgaha waxooda ma cuno warna adeerow aduu shakhsi eeg hadda anuu gabaraan caayimo ogi adigu waxaa hadda ka hadlaysaa shakhsi anuu shakhsi bini aadanaan ahay waaba gefi karaaba shakhsi baan ku gefi karaa ama gabar ha ahaado ama wiil ha ahaado ama adoo halka ila saaran ha ahaado laakiin kablalax oo seki oo jisuu sheegay daarood maanta hadduu 18 milyan yahay 16 ama 15 inaa ku sheegto oo garbahaagii ah oo dad kula dhashaya inaa sidaa foosha xun u caydo horta waxay ka turjumaysaa niyo shakhsiyadaada aniga mareexaan waa ogaasadaydii waa curadkaygii waa dad walaalahayo ila dhashay one day kelmad xun taariikhda anoo le haddii la soo helo wallaahi oo bilaahi oo tallaahi inan gumeed aan shakhsi ahayn baan ahay laakiin anoo farmaajo war hadalkayga iga sug baan ku yidhi haddaa laakiin soo hesho anoo farmaajo maagaya oo mareexaan badan ay igu kacsan yihiin warniyo farmaajo caaqil mareexaan ma ahayna madaxweyne qaran buu ahaa warniyo oday daarood ma ahayna wuxuu ahaa siyaasi Soomaaliyeed dadka Soomaaliyeedna waxna waa taageersanaayeen haba badnaadeen waxna waa mucaaradsanayeen daahirkaas ayna kala jooga waxaa soo hartay arrintaas shakhsiga ah oo aan leedahay gabar baa cayday iyo waxaas adaa maaragtay soo cadeyn doona waxaa kuu soo hartay ninka Seki OG ah Seki OG markaa u jawaabo Seki OG-ow nin adeerkaya tahay nin ogaadeena tahay anigu Ayuub ma jeerteen ahaan uma caano shubin aniga ninkaan ni saaxiibkaya weeye nin shakhsiya weeye boqor daarood oo ma jeerteen keena la yiri ma aysan ahayn ee Ayuub shakhsiyan oo saaxiibkaya oo aan ku dooranay buu ahaa de ma jeerteen sida ogaadeen ay walaalaha yihiin oo garabkayga yihiin oo madaxa igu saaran yihiin oo mareexaan uu walaalkay yahay oo uusan meel iga jirin de ma jeerteenna buu walaalkay u yahay aniga qabiilada daarood oo dhan mid habeen xiga mid laba xiga waxay ii wada yihiin dad sharfan oo madaxa ii saaran wanaagooda iyo midnimadooda baan jecelahay midaan mid ka jecelahay أي شيلو هذا بقر كلو دارود على مسارنا مايا هذا شيلو بقر كلو بقر دارود مايا بقر دارود عاون سكريو موت كلا كلا بالمال ماشي قصة جلسين بي نادر سوبل نادر ما تقدر تجلسين إني ماشي بدي قرأت كلا هذا وحويان ماشي سيد عادي جا مدي كتاج بعد كريتين ورني واحد يدو كل حد ينسى ولا قبطان ومركل على جحظة هذا الواحد التاجي هاي بقرني ماذا سلسكوا هاي شينا وحلا ساري نكا كلا وحلا ساري ماشي مهمة meesha loo soo galay waxay tahay anana meesha noo yimiday xalay toole sidee wax u dhaceen boqorkaasina ma inama tali kara ha oo maya labada inaad kala gashaan haddaad isku raacdaan kaasaan ku daynaynaa haddii laga soo wada horjeedsado oo anigu koow ka hayo kuumada matalayo uu Zakariya kuumada matalayo caga joogo oo adeerkan Cabdimaalik la soo qabanayo caawan mid kala dooranna sida caadiga shiina culayna xalay garaadada isaga saaray isaga xidigaha garbaha ka sooray isagana caawa saaray sida caadiga ha loo codeeyo codna ha loo qabto illa saariyin kale daayir cali soo inta sida caadiga aniga daaranisi ninka ana wax u joogan raba horta ninkan waa hadda caawa si fiican buu u hadlay horta had iyo jeer buu waan arkaa dadka markii lala hadlo oo runta loo sheego oo points lagu qabsado waxay u ordaan meel kale war aniga farmaajo haddaad mucaaradaysa madaxweyne Soomaali buu ahaa anigu kaama xigo nin daarooda weey xagga iska dhigdaar cali soo waa kacay halkan u saaran waxa lagu haystaa waxay tahay war daarood boqor daarood baad sheegtay kan qabaqaabinayo gogasha dhiga maxsuun ma ahan waa ceebaysan yahay waa eedaysane gabar daarood oo sharaf iyo karaama alla siiyay publiga ku ceebay ku caay public soo dhig ayadoo qaawan oo aan keeshir wadan oo aan gargarad wadan oo aan madaxu qaawan yahay hawiye kuma samayn karo hawiye xitaa kuma samayn karo dir kuma samayn karo islaam kuma samayn karo dadka noocaas ah ee magacii daarood iyo sharafkii daarood ceebay oo haddana ka bacdi soo noqdo hal shir gabadha la yiraahdo ee murtimaal baraanki baa naga dhaxay inta public soo fariista aad ku caaydo tirwaad wasi waaye dambiyadaas daarood ka gashay anagtii siyaasadda xagga iska dhig cidna kuma haystaan
midda lagugu haysta waa taa asaguna waxaan ku haysanaa inuu sakraan yahay ilaahay caayay diinta u gafay gabdhihii daarood caayay adiguna noocaasaa tahay marka waxaad doorateen daaroodka dhaqanka xun ee gabdhaha caaya ee sakraamiinta ah miyaad boqor u doorateen idinkuma haysano laakiin daaroodkan caawa masaajidka ku jira ee halkan fadhiya aniga ee aan giftina raadin aan waxna aanan dooran ee halkan ku jira magacayga madax goosan kartaan xana ku ragragan farmaajo dambiile daciifa hadda tahay oo aan rag iyo rabbiba aqoon dambi baad gashay ilaahayna uga toobadkeen daaroodna ka xaalmari qaladkaasaa lagugu haystaa aniga waxba kuu qaran mayo dembigaasaad gashay waana dhaqan daahir cali soo waan samayn karin qof kalaan samayn karin gabar in adeerta ah oo daaroodka caawa aad boqorka u doorayso yuusuf daarood oo tablahaad qaawisay gabar mareexaan ahaad cayday aniga giftigan kaaga baahana maxay tahay giftigan anigu kaaga baahana maxay tahay anu masharcigaan baan ahay nin shaqaystaana weligii meeshaan baaldi ma gasta baaldiga adaa madaxa gashto adaa meelaha taagan adaa taaj lagu yidhahdaa fallaari gelgelsho kaagama hartee arrinkaasaa lagu haystaa haddaad daarood lexjeclo u hayso bini aadanku waa qaldamay waxaad tiraaya talow waan qaldamay madashaana xaal ku bixi oo daaroodna xaal ku sii ilaahayna abti daaro aflagaadadu waa xaaraan aflagaadadu waa xaaraan maxamed cali aflagaadada joojiga jooji iida hadda dhamayso muhilla fiir ninka dadka fiir ducafinimada noocaas alaaka maxamed cali ninka qofkii uu joogaa arinta qadiyadda laga hadlo boqorka qadiyadda waa ka hadlayaa hadda qadiyaddii boqorka ninka odaga aniga saaxiib baan nahay maya fiiri ambas fiiri war daahir ninka daa dhamaysta caburine daa dhamaysto saaxiib وريو فيري داير على سو انا مرتبان كون دحي اسنا مرتب ku yahay meesha wax la faanqeynayay ragii xalay meesha tagay ee yiri boqor baan dooranayna kuwii qaban qaabinayay iyo kan la doortay daaroodna ma geeyaan waa dad daarood ka dhaceebaysan oo dhaqan xumo daarood oo aan weligood u arkin Soomaali sameeyay arrinkaas ceebna ma aha qofka dambigaad gashay daayir cali Suudaan ku raa dambigaas aad gashay ceeb ma aha qofka inuu marka gifti ku soo galgashay waxa soo dhan loo baahan siinuu dambiga lagu haysto waxay tahay fahiima qaawinta qaawisay dambiga lagu haysto waxay tahay xana shira aad u gaftay oo inta codadkooda ahaayeen duubad arrinkaasi saad uga garbixilay aday ku talaadaad leedahay gogol daarood baan caadigaana waa meeshii dambiyadu boqorkina ku dar boqorkina ku dar dambiga lagu haysto okay maxali horta sagariyo dhageyso boqorka marka qofka loo dooranayo daaroodka amtaaka ku jiray iyo maanta ursagaliga maanta fadhiya baran fadhiya tukanaya ilaahay ka baqay iyo gaadinka halka fadhiya tukanaya imraaxanka tukanaya qofka magacooda qaadanaya waa inuu noqdaa qof sharaf iyo karaamo iyo ciiso kule ilaahayna u dhow ilaahayna jecel yahay ummaduna ay jeceshahay wax ceeban aan lahayn shakhsi marka ilaahayna ku kufriyey diintiina ku kufriyey dhaqan xumo iyo aflagaada public la taagan adeer ceeb bay ku tahay daarood mana aqbalayno labadaasaa lagu haystaa ka garbaxaawo waana ka baxay waayahay daahir marka waa hadlayaa horta maxamed caliyow aniga haddaayaan kuu sheegay waxaan kugu idhi nin kabla laxoo dhan midga u yaqaana oo shalay lahaa baa tahay anoo taagan oo ay duuban tahay oo daahirka halkaa nala saaran uu markhaanti ka yahay niyahow midgaan horta waxba ma wadaagtaan golana uma dhigan karto wuxuu doortay iyo meeluu fadhiistayna horta waxba kaama gelin waxaa ka hadlaysaa hanishiraa ka hadlaysaa fahiimaa ka hadlaysaa war fahiimo ninka soo duubay oo social media keenay kii qabay buu ahaa anuu ma soo dhigin halkaasay wareegaysay meel kastayna ku jirtaa hanishiraa kuu soo hartay hanishire iyo ninka la leeyahay ninkii guursaday oo la odhanayay murtimaal anigu meelay isku guursadeen waa ogaa iyadoo dadku u hambalyaynayo gabadha afkeeda laga hayaa inay tiri iyagoo aan bilis qabin branki buu ahaa anuu sariir waxa ku dhex maray nin iyo naag kama warramo kama hadlin laakiin cod duuban oo uu isagu leeyahay oo la soo duubay oo daahirkaasi hayo oo meel kasta ku jira oo publicly aa u heli kartid oo uu leeyahay gabadhii waa ka mashquulay oo sariirtii waxba naguma dhex marin baa anigu soo dhigay codkaa kan yidhi oo gabadha qabay oo laga duubayna murtimaal buu ahaa haddaa cid doonayso oo gabadhii aad leedahay sariirtii waa looga shaqayn waayey warkii guursaday oo codkaa ka soo war hadalkaan dhammaysanaa sugniyow inan gumeed daciifaa tahay warniyow tiktok simaa la dhahaa dulli adigoo kale ah oo daciifa oo aan waxba kala aqoon oo qabiil walaalihiisa oo ku naxsan oo inay ka laandheeraysan yihiin keliya u le midgo warniyow inaa aniga meel la soo fuulo khalad ugu ahayd laakiin tiktok waxaa la yidhahdaa sima aniga adigana isma aragneen
ismana maqalneen qolkaa daahir calasow baa isu keenay golana isugu iman mayno meel kalena isku arki mayno sababtoo ah dad isgaari kara oo meel soo wada istaagi kara ma nihin maalintii labaadaan ku arkayna maxamuud saleebaan baa ku dheganayd maxamuud saleebaan baa puntland ka ah waa madaxdaadii waa boqoradaadii nin laangaaba oo cuqdadaysan oo jiran waa tahay hadal intaasuu noogu ekaanayaa qolkaa daahir calasow waa isku aragnay ma waa soo warina gumeed yahow hadalka aan dhamaystay hadalka aan dhamaystay inan gumeed yahow inan gumeed ku dhalay 8,000 oo qof la socoto 800,000 oo qof baa ila socota midgaana adiga ah adaana waxba kala aqoon qolkaasaana isu keenay weligaana madaxaa lagaa saarnaa haddana waa lagaa saarnaanayaa ama kac ama kuf kaama jeerteen baa boqor ku ah weligiina isaga ku ahaanaya orod meelahaaga iska aad hani shirana haddaa leedahay ninka shaqeeyaa la rabaa murtimaal ula hadal isagaa guursaday iyadaana inta la guursaday oo nin sharaf leh loogu daray oo aan halkaa uga hambaleynay nugu soo celisay bilka bacdi baraanki waa iyadaa waxaa kala xisaabtamaysaa marka midgaan adoo kale ah lama hadlo anuu kuu caayi maayo mareexaan kuu caayi maayo laakiin midgaan nasabaddaan cad ku lahayn baa tahay kabtankana anaa doortay boqorna aduu kuu yahay waana ku ahaan doonaa waana ku ahaan jiray intaasna hadal ha inoo ahaato اوكي كبح متقال مع السلامة هورتا كبح جايو كبح واربلدين هورتا داير ما قبسن كرت نيك لوغو بريس عامس بودقل هورتا الصوماليه عاو وادنا aragtaan sharaf iyo karaamo halkaas ay caawa ku dhimatay eygiiba caawa qol ii soo galay waana cararay horta inuu cararo waan rabay warma ninka dhaqanka xun ee gabadha saaxiibkii fuulay ee adeerkii gabadhiisa fuulay codkiisa lahayo ayaa saakay dad ku caayayo warma ninka dawarsadaha ah ee taajka sheegtaa saakay dad ku caayayo warma ninka saakayto ilaahay baan kugu dhaariyey risa ka doonay gabar daarood oo sharaf iyo karaamo leh hooyadii la ku qaawiyay public inta caawa waa rabay horta aad iyo aad buu daahir calasow caawa u maadsiiya daaroodka waxaan leeyahay wuxuu yidhi daaroodku waa gobol lafaha gaaban baa dilay ina gumeed ku dhalay warsangelina loo caayi maayo dhuxulaystaha ah ee dhaqanka xun hana shirana ma caayi karo afkan laad kala dhacaynaa dadka noocaas oo kalena magac daarood ma qaadan karaan dawarsadahu dhalay ee ina gumeedka ah ee aan dhaqanka lahayn ee aan sharafka lahayn ee gumaysan ee la baadil ee gumaysiga ku jira ee la haysto ee publica lagu gumaysta ee aan xorta ahayn adeer markaad xor noqoto banaanka soo istaag adeer bustihii cali yuusuf baa weligaa waday haddana bustihii waxaad wadaa safraan geysdiir weligaa waa lagu saarnaanayaa inuu gumeed dalaa tahay adeer ilama sheekaysan kartid baar saraan ka dhashay mareexaan dhalay oo laandheera habeen ciil arag baan hawriya gabdhaha intaan soo fariistan gabdhaha Soomaaliyeed ma caayo ma dawarsado bahalkii madaxa lama galo in adeerkay baad kama raadiyo adeer waad ceebaysan tahay saakay daarood ma soo dhex istaagi kartaan adiga kaa qurmoon aad wadatid adeer ma wadan kartaa waayahay maxamedow mudiigal laandheere sangarigaa sharafta leh ee gobta ah ee halkaa fadhiyana caawa u caaya laakiin shaksi xun oo daciif dhalay ah oo aan nasabiyad lahayn baa tahay waana lagaa saaraya baraha bulshada waana ka baxay waayahay shiina colay inaad ii soo celisaan jeclaa nimayo wax badan baa qaldan ma jeerteen daarood oo wada socdo bay gees uga istaageen annagu ma jeerteen baa nahay daarood ma rabno bannaankaasay u baxeen shiina coley haddaan la hadlay waadi maqashaa arrintan aad samaysay shiinow qoodax baad ku dhabar jibinaysaa iyo gaftiradii 1 milyanka kugu dhufanaya gabdho iyo dumar balaha shiinow ma ahan sideedaba inuu hunguriga iyo giftiga meel qaldan ku geeyo caleema shubkii shalay waad ku qaldanayd reer aad og tahay oo shalay adiga aan ku soo garab istaagin oon dagaal kula gelin oo aadan waxba ku qabin daraad aad og tahay inay daarood bannaanka uga baxeen waa qabiilka keliya ma jeerteen daarood dafiray weeye waa qabiilka keliya ee yidhi daarood annagu mani shaqo ku mali bannaankaasaanu ka taagannahay right now adiguna shiinow waxaa rabtaa inaad nin majeerteena boqorkii daarood uga dhigtood warsangeli oo dhan hoos geyso iyo kablo laxoo dhan iyo daaroodka kale shiina colayow marka meeshani hadday cididan ku qabto kalaam baalkii tiktok adiga weeye waa inaad ina adeerow tallaabadaada ilaalisaa oo aadan niyad jibinin
dadka ku garab taagan ee tolka ah shiina maadaa tuura daayiro mise waa tegayaa buu yidhi maya in asaday kadibna ragga odayaasha dhan baro ku qabtay inta maxamed cali ka ahayn markii haddaan ka qaaday balogii waa soo celinayaa waan ku darsanayaa weliba waa i baloogen waaban maxay waxay tiri waaban hadalka maxaa lagu baloogay baa tiri nimanka afsaba wada arkaysaan fiiri tabarta halkaasi ka gaadh halkaasi caawa tabarta gaadh maxamed cali hortaarayno wadadii saaray adigu wadada saaray gar baa lagu dadku way cuneen be dhow ku soco marka jidwa hal lahada inta raban waa dhahay warniyow ilaahay mataqaanaa maxaa caliyo shiine asagoo lagu dhegan yahay oo hadalkii maaragtay laga badiyey uu ogolaaday inuusan ayuub ahayn boqor kalena la dooranayo meel fiican marayso ayuu su'aal ku weydiiyey wuxuu ku yidhaha maalin dhow gefaa kaa dhacay qofkaasi miyaa tahay gefka kaa dhacay inaad qarsatee ahayd qowmiyad dhan haddaad dhacday midgey yihiin dhegeyso halka dhammayso maxaa cali adiga silal baa qabtaaye haddii aad ku sheegtay inay midka yihiin midka isboqraayo dee kama hadli kartid jawaabna meesha ku mariyid wuu kaa saxan yahay hadalka intaas uga baxay aad baan uga xumaay qof aan dadna ahayn bini aadan ahayn waxna garanayn inuu saa usoo istaago waryaa haddaad daarood tahay oo aad sharaf leedahay oo aad karaamo leedahay ninkan qodob baa lagu haystaa fahiimuu qaawiyey ya garan fahiimuu qaawiyaa lagu haystaa waryaa hana shiru caayaa lagu haystaa ninka gabdhuhu caaya qofka gabar caaya daarood ma matali karo gogol looma dhigi karaan ku haysanaa maxamedow laba mawduuc isku furaysaa annagu fiime iyo dadkaas meesha kusoo celcelinaysid uma baahnin laftigaygu dagaal dhinacayda ka gelaynaa annagana dhibaysaa fiimada kusoo celcelinaysid ka bax shiinana ma joogo marka hore kuu dul qaadanay hawsha ka gudub hawsha meesha taalla waxa waaye waxbaa la boqrayaa meesha fiime ma taalo haddaad adigu rabtay inaad meg u qaatid tan dhegeyso tan waxay u egtahay meg aad la qaadanayso lama qaadanay boqor baanu ka hadlaynaa meesha fiime ma taalo carabkaaga bar fiime inuusan dhegeyso midgaan xun baa tahay oo aan ragna iyo rabbi wadna aqoon dhegeyso qofka gogasha dhigayo iyo kan la dooranayo dad ceebaysan oo dulaysan oo baraha bulshada ku dulaysan wariyaa mid diin caayay iyo mid gabdho daarood qaawiyey seebay boqor daarood baan samaynaya daayiro abti waa soo laabanayaa isoo qabo hoos markaan imaado markaan soo qabsado fiiri waxaan ka hadlayna fiiri qodobka aan ka hadlayna kaasi waaye marka adeer macaan iska aamus adigu meelaha ragga ku hadlaan kama hadli kartid xayraac baa tahay miskiin ah adeer ninkaan dambiilo waay ma dhihi karo intuu soo istaago daarood baan boqor samaynaya ma dhihi karo kan loo doortana ma geeyo dhegeyso hadda shiina wuxuu ku yidhaahay inaan meesha kula saaranahay bahdil bay igu tahay aniga waxyaaluhu kudhaa kuu sheegaya hadda waxaad leedahay harti waa midgo haddana boqor ima noqon karaan oo daarood waaba ka saartayba haddana waxaad leedahay shiina waa cabtooy mar dhawadna waxaad igu raacday wixii isboqray inay dad cabtooy ahaayeen shiina hadduu cabtooy yahay sheekada wadin shir oday baa gelinayaa haddii saqrangeestiir oo boqorka u qalmo boqor in loo cilmo saaro qosalka u taabta haddii kale ooyinta u taabta oday baa gelinayaa aad u weyn sida caadiga aad u weyn maxaa dhacday qosalka iskale qosalka askari amiir ninka la yidhaahdo saqrangeestiir ooyintana waa kasoo horjeedaa ku soo celi kuma faraxsanayo ku soo celi